saaka ana isugu kii yeedhay ujeeddada ugu weyna waxay ahayd in aan ka falceliyo ama cabiro aragtidayda ku saabsan shirweynaha afraad ee xisbiga kulmiye baryahan bal la hadal hayay sidii aan hore warbaahinta ugu sheegay waxaan musharax u ahaa jegada guddoomiyaha xisbiga kulmiye waxaan u caddaynayaa taageerayaasha xisbiga kulmiye shacbi weynaha somalilan inaanan ka tanaasulin hankaygii waxaan leeyahay ma da'furin damacaygiina waa halkiisii shirweynaha la qabanqaabinayo ee afraad ee xisbiga kulmiye ee madaxweyne muuse u magacaabay guddi qabanqaabo isagoon cidna kala talagelin wax waraaqa ah oo aanu gudbistay ma jirto oo ku saabsan musharaxnimadayda sababta ugu weyne waxa weeye shirkaas waxaan u arkaa inuu yahay mid u afduuban madaxweyne muuse biixi cabdi uma arko madal xor ah oo loogu talagalay in lagu tartamo ama si siman loogu loolami karo hase yeeshee waa meel iyo munaasibad lagu dooranayo nin dooran markaa ninka la dooranaya waa madaxweynihii waa guddoomiyihii xisbiga isagaa shirka jeergaraynaya isagaa ergada soo xulaya isagaa guddiga qabanqaabada magacaabaya dowladdiisi iyo wasiiradiisi iyo xadaafiiraheedii baa imanaya markaa sawirka uu leeyahay waa ka ay run tahay markuu kaa yahay waxaan go'aansaday inaanan ka qayb gelin ka dhex loolamin kana mid noqon milxiis markhaati iyo kuwa ka mashxaradaya mid madaxweyne muuse biix cabdi wuxuu cagta u saaray xisbiga kulmiye dhaba cagaag leh oo ku dhisan kelitalisnimo iyo kelitoocsi wuxuu ka duway xisbiga kulmiye tubtii uu ku soo caanamaalay ee ku dhisnayd tala wadaagga isu tanaasulka tuuraalaha iyo tawfiiqda waxaa mabaadida tiirarka xisbiga kulmiye u ahaa waxaa madaxweyne muuse iyo maamulkiisu ku bedeleen hal kudhigyo aan dhaafsiisnayn looma baahno hebel ha iska tago sidaan u galay ma arkayseen muxuu ahaa iyo loo joojin maayo iyo wixii la mid ah madaxweyne muuse wuxuu ka tallaabsaday si badheedhana si cadna uu buriyey xeerkii xisbiga xeerkii iyo habdhaqankii xisbiga kulmiye ee ku saabsanaa madaxweyne la doortay inuu banneeyo jagada guddoomiyaha xisbiga kulmiye xisbiga kulmiye waa xisbiga keliya ee yeeshay laba guddoomiye iyo laba madaxweyne madaxweyne axmed siilaaye markii uu noqday madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan 2010kii wuxuu baneeyey jagadii guddoomiyaha xisbiga kulmiye arrin uu iska jeclaaday madaxweyne siilaaye oo keligii ku maamuusay muuse ma ahayn arrin muuse biixi xoog iyo xeelad axmed siilaayo kaga qaaday xisbigana ma ahayn waxay isfaham iyo xeer reer kulmiye ay gaadheen ayay ahayd xeerkii nooca ahaa
madaxweyne muuse maanta wuxuu xisbiga gacanta ku haya isagoo madaxweynaha 3 sannadood oo ay ka dhiman tahay wax yar muddadaa intaa leegna baadi buu ku ahaa madaxweynaha Soomaalidu waxay tahay ammaano kugu raagtay yadaadaad moodaa markii uu 3 madaxa la galayna hanti uu leeyahay buu qaatay marka xeerkii iyo habdhaqankii kulmiye u jidaysnaa sidaasuu u buriyey waxaa jiray nin la odhan jiray weylwaal oo oday u ahaa beesha bartire ninkaasi wuxuu caan ku ahaa danaysi iyo damac iyo ficiltan iyo feejignaan meelo badan bay madaxweynaheenna iska shabihi jireen dhaqan ahaan dabadeedna nimankii bartire ayaa shiray waxa la waryaaraheen miyaynu maalin walba dee u dul qaadan karraa ninku waa nin inala siman waa se inoo oday inuu laba cad keligii isku qaato la geeyo sararta inuu keligii maalin walba qaato wiilwaal miyaynu dee ka yeelnaa maya baa la yidhi dee bi waaya rag u qaybino 3 nin baa loo qaybiyo waxay 3dii ragga ugu sitay way qaybsadeen hadalkooda waxay yidhaahdeen ka hore wuxuu odhanayaa wiilwaal buu ku yidhi kii labaadna wuxuu yidhi labada cad kii saddexaad ee ay ahayd inuu yaala iskuma heshid wuxuu watadii qaatay nin feejigan markuu saa u qaatay buu yidhi mid kale ku darso cad kale dawabaridii mid kalena ku darso waxaan leeyahay hadday madaxweynaha ragga qaarkii ku yidhaahdeen labada cad isku hayso muusow waxaan ku leeyahay labada cad iskuma heshid xisbigu waa kii xilkuna waa kii xeerkuna waa kii shalay adiga ku xaq siiyey wuxuu yidhi saayid qamaan waxaan masow aabbaha iyo magan ka soo gaadhay rag waxaan ku maamuli aqaanama ku maamuusi maso inaanu nahay oo tollimon meerta noo tahay xisbiga kulmiye wuxuu soo maray loolana adag oo dhexdiisa ah muddadii uu gaar ahaan dowladnimada qabtay ee 7 sano sababaha ugu waaweyn ee uu kaga badbaaday duruufihii iyo damacyadii ragga qoodhii badnayd ee iyo qoorweyntii ku leelamaysay waxaa saldhig u ahaa wuxuu lahaa mustambeed iyo marjac adag oo ahaa madaxweynihii qaranka axmed silaayo oo aan ahayn guddoomiyaha xisbiga meesha lagu tartamayna waxay ahayd guddoomiyaha xisbiga iyo musharaxa axmed silaayo xigaya wuxuu kulmiye kaga badbaaday ninka wax doonaya ee siidhiga haya ee haddana ordaya ayaan dee gacanta hal nin uguma wada jirin waxaas axmed silaayo wuxuu ahaa madaxweynihii qaranka raggiisiina isagaa isu celcelinayay ama mid ha tanaasuliyo ama mid ha la faqo ama mid ha ka masluxo mid ama haba tartameen sidaasuu kulmiye ku soo badbaaday waxaa intaa dheer xukuumaddii kulmiye way guulaysatay waxqabad badan bay xaqiijisay waxaa sabab u ahaa waxay u gacan baxday howlihii qaranka ayay u gacan baxday xisbigiina hoggaan gaara iyo haldoor gaaraa joogay oo u gacan baxsanaa maamulkiisa 2 gamcood baanu ku kala wadnay oo isqooranaya oo iscaawinaya oo istaageeraya maanta waxaa muuqata in hal gacan wixiiba isugu tageen madaxweyne muuse iyo xukuumaddiisuna ay wixiiba iyagu ay horumarkii qaranka iyo howlihii adkaa ee hafinayey ay kaga mashquuleen xulid ergooyin xisbi hebel loo jawaabo hebel waxaa laga sa wixii oo dhammi sidaasay noqdeen waxaan ka maqlaa mararka qaarkood iyagoo leh kala saaridda isku hayntaa laynoo qaati waa ragaan
waa rag aan xeerarkii iyo habdhaqankii xisbiga isha ka lalinaya waa rag waaqaca dafiraya weeye raggaasi sidoo kale madaxweyne muuse wuxuu si badheera uga baxay ballamihii iyo heshiisyadii siyaasadeed ee uu la galay waayeelka iyo waxgaradka taageerayaasha xisbiga kulmiye doorashadiisii ka hor meel fagaara ilyartu isqabatay uu ku ballan qaaday inuu markuu hadduu jagada madaxweynaha ku guulaysto uu wareejin doono kursiga taana waa ka baxay haddii uu madaxweyne muuse u yaqaano xariifnimo iyo xiliyo caddaan been la sheego iyo ballamaha siyaasadeed oo laga baxo waxaan leeyahay hogaamiyaasha wanaagsani waxay u yaqaanaan habdhaqankaas dhegxumo weyn iyo dhimasho siyaasadeed wuxuu yidhi ninkii la odhan jiray winston churchill ra-iisul wasaarihii ingiriiska dagaalkii labaad ayaa halkudhig buu leeyahay caana in war you can be killed once but in politics you can many times dagaalka mar baa lagu dhintaa buu yidhi siyaasadda si marar badan baa lagu dhintaa waxaa intaa dheer dad muslima baynu nahay oo ilaahay subxaana wa tacaala rumeeyey ilaahay subxaana wa tacaala markuu la hadlayo dadka ilaahay rumeeyeyna waxa uu suuraة الmaa'ida ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu biاlcuquud kuwii iimaanka laga helaye ilaahay rumeeyeyow ballamaha oofiya aa gashaan ballamaha iyo cahdiyada siyaasaddu waa ka adag yihiin ballan laba qof gashay waxaanan ka hadlayaa ma aha muuse biixi madaxweyne muuse iyo maxamuud xaashoo ballan galay oo aniga wax lay ballan qaaday maaha waa wax ka weyn waa habdhaqan iyo ballan iyo ahdi iyo heshiis siyaasadeed wax aniga gaar meel ii yaalla ama aan ku doodayo le anaa gaaru ii ahaa ma jiro raggan ka mid ahaa doodha iyo qowweynta kulmiye loola mid doontu baan ka mid ahaa waxaanse ka hadlayaa si guud baan u hadlayaa rasuulku calayh salatu wasalaam wuxuu yidhi almuslimuuna calaa shuruudihim dadka muslimiinta ahi waxaa u xeeray waxay ku heshiiyaan waxaan leeyahay halaad nin ku baratay ma xuma soomaalidu waxay ku mahmahdaa ninku siray kuma dilin balse waa kuu digay madaxweyne muuse hadduu ballamaha iyo cahdiyada siyaasadda sidaa fudud uga siibto waxaa isweydiin leh sida siduu u aaminsan yahay in mar labaad loo rumaysan karo waxaase yaab leh hoggaamiye aan qowl iyo qorshe cad lahayn waa arrin weyn oo isweydiin leh tawsta iyo tabaalaha xisbiga kulmiye ku habsaday kuma eka intaa qura ee madaxweyne muuse iyo maamulkiisu waxay qaybiyeen xisbigii kulmiye ee tin iyo cidhib midnimadiisu sababtay inuu kursigii dalka u sarreeyu maanta fadhiyo saalo loo saaro xisbiga kulmiye wuxuu ahaa xisbi ballaadhan degaano badan taageero ku leh xulufooyin badan ka kooban xirfad iyo xikmad badani gashay isku hayntooda aan iska iman iska soo go-in meel kaley qabtaan waayin laakiin laga shaqeeyey oo lagu tabcay mana aha madaxweyne muuse ka keliya ku tabcay waa looga tacab badnaa rag fara badan baa uga tacab badnaa waa uga tacab badnaa xisbiga raggii noocaa dadkii nooca ahaa madaxweyne muuse iyo maamulkiisu markii ay xilka qabteenba way qaybiyeen waxay ka dhigeen wax la yahaa kulmiyihii hore iyo kulmiyaha dambe
waxaan manayaa ereyada inaa maqasheen aanay dhegihiinna ku cusbayn raggaas soo saarayay qaar baan kulmiye habeen u ololayn ee muuse la shaqeeya maanta gacanyarayaasha u ah qaar baan habeen u soo dib jirin qaar soo shaqeeyana waa jira waxay bixiyeen kulmiyaha cusub iyo ka hore dadkii soo halgamay ee aan xilalka iyo xukuumaddaa ka qayb gelin waxaa loo bixiyey kulmiyihii hore oo ilfaashinka ahaa iyadoo laga faanayo dadkii nooca aha madaxweyne muuse farshaxan kuma aha isagu faalinta dadkiisa iyo ixtiraamka fikradaha ka dhanka ah balse wuxuu farshaxan ku yahay ficiltanka iyo kala fogeynta dadkiisa waxaa halkudhig halkudhiga baa jira la yidhaahdo two things define you laba ayaa ku sheega oo kaa markhaati kaca your patience when you have nothing dulqaadkaagu wuxuu markhaati ka noqdaa markaanad waxba hayn your attitude when you have everything dabeecadahaaga iyo dareemadaaduna waxay ka markhaati kacaan markaad wax hayso marka markuu ninku hogaamiyaa yahay habdhaqankiisu dee wuxuu muujinaya markaa dadnimadiisa ayuu muujinaya madaxweyne muuse wuxuu si qaawan ula dagaalamay dowladdii dhistay ee uu garwadeenka ka ahaa saaxiibkii axmed maxamed maxamuud siilaanyo aan aniguna ka mid ka ahay waxaa hubaal ah kulmiye waxaa lagu doortay barnaamij siyaasi ah waxqabadkiisii hore ee xukuumaddiisaas baa u shafeeco qaatay waxaa kaloo lagu doortay barnaamij cusub oo labaad oo mudaxileedka labaadana kulmiye dadka ayuu ka yibiyey haddii dowladdii kulmiye ahayd dowlad unpopulara oon sumcad lahayn oo ummaddu ka kalsooni qaadatay oo nacday lama doorteen kulmiyihii muuse biixi madaxda u ahaa xaqiiqdu waa sidaas waayo labada xisbiye mucaaradka waxaanu kaga duwanayn annaga waxaa nalaga xisaabinayey maxaa qaba kulmiye muxuu qabtay 7 sano iyo muxuu qaban doonaa iyagana waxaa laga xisaabinayey oo dadku dhagahooda u raaridayeen muxuu qaban doonaa waddan iyo wixii xisaabta adaga ee ah maxaa kulmiye soo qabtay iyaga lama weydiinay oo ahayd taa codbixiyaashu ku go'aan qaadanayeen labada hogaamiye ha kala duwanaadeen hase yeeshee xisbigu waa xisbigii weyn mabaadidiisuna waa isku mid markii doorashada aanu ka baxnay waxaa madaxweyne muuse iyo maamulkiisu u dhaqmeen noola dhaqmeen waxaanu ku wareejinnay dowl iyo dal midaysan iyo dowlad habaysan oo xil wareejin shay weliba qoran yahay oo wasaaradihii shaqaynayaan oo dakhligii socdo oo shaqaale hal bil mushahara aan amaaha ku maqnayn raashinka ciidamada amaahna lagaga lahayn wax waliba sidoodii yihiin qalin iyo warqad waliba isdul saaran yihiin ayaanu madaxweynaha ku wareejin isku dowladna waa isku xisbina waana waxaa bilaabantay muddo dheer oo 2 sano ah halkii ay wax ka qaban lahaayeen iyo himiladii naloo doortay waxay ku mashquuleen caydii iyo xantii iyo xasaradii iyo ximintii xukuumaddeedii hore mar qura hadalna lagama maqan ma ahayn macnaheedu inaanu baqaynay macnaheedu ma ahayn inaanu bilaa damiir nahay laakiin waxaanu sabir iyo dulqaad iyo waayeelnimo waanu ka waay aragsanayn iyaga waayo dowlad baanu soo maray dhibta dowladnimadu leedahay baanu garanaynay iyagoo dee rag layl cusuba bay ahaayeen marka runtii raggaas xukuumaddaa ku jiray hablo iyo ragba waxaan ka markhaati kacayaa inay dhexda marada ku xidheen
guure iyo gabal carowba ay u shaqeeyeen xisbiga kulmiye uu guulaysan lahaa la'aantoodna waxa runa boori fagaaray ka warsheekotaaye inaanay muxuu ahaa xisbiga kulmiye aanu madaxnimo ku guulaysteen hogaamiyaha aanu wadnay iyo haldoorka ku xeerani 10 saac bay seexan jireen ragga iyo hablaha xisbiga xukuumadda Siilaanyo ka midka ahaana labada habeenimay seexan jireen shantana way soo shaqo tagi jireen salaad subax markay tukadaan waxay muujinaysaa walwalka iyo walbahaarka iyo mas'uuliyadda iyo culayska na saaraa cidda culaysku saaraa iyo assignmentka adag annaka yahay waanu ka walwal badnayn musharaxa iyo raggii la joogay raggii caan ka ahaa iyo hablaha yagii waxana lagu abaalguday xan iyo ximin iyo xasarad dalkii bay boobeen waxbay dhaceen waxbay qaseen war haddii wax la qasay ama haddii laynala xisaabtamo laynoo fiirsado waxa soo bixi doontaa waxaynu ku loolanay wixii qaranka una inay ahayd in laynagu adeeyo taasuu baa soo baxaysa madaxweyne muuse markuu musharaxa wuxuu odhan jiray road modelkaygu waa axmed siilaanyo maalintuu kursiga ku fadhiistayna isagii raggiisii wejigaasay yeesheen wax kale ka odhan maayo anoo tiimkayguu hadlaya hadda anigu iska hadli maayo anoo ka hadlaya xukuumaddii aan ka midka ahaa dhammaanteed waxaan leeyahay tacabaydhe maantaba hadduu timiri caayayo tolla-aan dheh raggii aan tiirka qabadsiiyey ya taana intaa baan ka leeyahay raggii aanu dhisnay hogaamiyahaanu dhisnay iyo raggii dhismihiisii wax ku noqday waxaa nooga xan iyo xasarad wanaagsanaa iyo nooga xan iyo xasarad yaraa kuwii aanu u arkayay inaanu dowladnimadii ku muquunin aanu gacanta ku hayn yaa nooga dareen iyo niyad wanaagsanaaday oo nooga xan iyo xasarad yaraaday waxba yaanu xeerkay marin xoolanay siina xaashinin liban kaa xistiyey xumihii waya gabaygaa salaan carabe baa leh kii horena waxaa leh cali jaamac habiil colaadinta iyo ciilqabku kuma ekaan intayadii xukuumaddii ka mid ahayde waxaa la colaadiyey madaxweyne muuse iyo maamulkiisu waxay la dagaalameen taageerayaal badan oo xisbiga kulmiye ka mid ah oon xil xukuumaddaa hore ka hayn deegaano badan oo laga soo doortay oo siiyey cod duufaan leh ganacsato ku dhiig baxay ayaa lala dagaalamay oo maanta wada calacalaya beenaale markhaatigiisu fogeeyaa la wadoogi waxaa arrimahaasi ay ka dhabeeyeen hadalkii madaxweyne muuse biixi uu ka yidhi madasha haldoorkii doortay ee guusha soo hooyey isagoo aan 40 bixin lana gardaadin guushiisii halkuuga mahad celin lahaa ku yidhi fartiinna ayaa dhexda ka qaniini doontaa taas uunbaa caddaatay ma aha waxaan ka hadlayaa dareen maxamuud xaashi ah waa dareen reer kulmiya xogagaal baanu ahay suuqaan maraa hadduu madaxweyne muuse meel kaga xidhan yahay oo uu yahay maxbuus maamuus leh madaxweynuhu waa maxbuus maamuus leh maaha muusoo quro madaxweyne oo dhanba anigu galab iyo habeen waxaan la fadhiistaa kuwii wax doortay waan dhegaystaa deegaanadaan marar tagaa marar badan baan khajilaa oo aan waxaan ku jawaaba waaya xaqiiqdu waa sidaa ninkii qumane qoorta loo suray waa isaga iyo yeelkii ee qiimayn kari waaya halkaa waxaa ka muuqata madaxweyne muuse iyo maamulkiisu inay ku guul daraysteen xisbigii doortayna inay isku hayaan isla markaana ay ku guul daraysteen doorashadii markay dhammaatay haarihii iyo boogihii iyo qaybsankii ummadda somalilan ku yimi waxaa waajib ku ah inay daweeyaan oo ururiyaan oo xantadkii doorashada biiyaan lagama sugayn cabdiraxmaan cire iyo faysal waxaa laga sugayey madaxweyne muuse qarankii qaybsamay
maanta oo 3 sano doorashadii kale inagu soo dhowdahay sidii buu qaybsan yahay waxaanay ahayd in la isu soo jiido xilkana cidda guulaysataan bale xisb xabaadhiisii baa qaybsan maanta xisbiga kulmiye marka ninka xisbigiisa hogaamin kari waayey isku hayn kari waayey qaranna isuma keeni karo taasun baa caddaatay intaa markaan ku soo ururiyo waxaan jecelahay inaan dhowr eray oo kale xuso maalin dhaweyto waxaa is-sharaxay maxamed ibraahim ninka la yidhaha qabyo tire waxba kaga fogaan maayo ma rabo inaan hadal badan ka galo waayo shirka qiimayntiisaan muujiyey anugu saasaanu arkay isna wuu soo taabtay waxa aan sheegayuu soo taabtay oo caddeeyo markhaataa u dhacay waxaan maqlayay rag leh wuu iska ciyaarayay qabo musharax rasmiya ma ahay waxaan leeyahay raggu si kasta haysu hayo haysu xoqo laakiin inuu aada isugu talax tago ma aha ya قولوا ولو اعدلوا ولو على أنفسكم بلايين عدالة سماية حتى إذنك هذا قف السقبتان مركا ويسكع نيو وينو سياسية وهنله وشال كوي سوها الجماعة تاريخ وين كل قرنك يحسب كل يابا إن حاجة دي سلوا الصور كل ويسكع ياري إنك العكس ستي تشاجا كاني وراقيه سوتي أنت سوا حوي عمل خدع عمل خدع ويان وأنا أريمها الله يسطوري وأنا حكم وقتوه جامن حمهم تاين تاسن كورانية وهكذا أو إيدنا عن أركيا كراسي كلام عندنا لولا ترتمين مدحونا كحجينكي ولا لا ترتمي منك الله ترتمي شال جودي قارن قابضو أحمد مومي سيدنا وحي كل ريبين شنتي سنة إنانو بوحين وزير كجناعسجة ساعتنا وحي الذي مو بوحي ده ويسك قاونت أو ويسك قاونت ووحي نكهد للنبو ووحي نكهد مرخاتي بويه لا راسي أرينا نكهد لي إيانا سيدا طاقبه وزير كجناعسجة حشمت بيجمع دنياي كحد جود بمايو احترام بيجمع دنياي وانين وين وقيمة له لكن وحنا كهذا يا حقال وحنا وأقيموا الشهادة لله خاتيك إلهي درتي فرا بالي أنت أنا أجهي بنفريا سير داري نوانا كما وقت فضاء وزير كجماعة سجوساتة هنا موميس كان سوكو ودك إمارات كعربت أيام نتقني النجو وفديه قدوم مدحوينه لو أنه قد شري مصبح سوى مركب قدومية مشارحة waxaanu tagnay Salebaan Axmed Guuleed gudoomiyaha jaamacadda Amuud oo baanu ugu tagnay qalliin ka baxay hudeel noo reer Boorama aan wada qadaynay oo ku jiro saacin halkaas aanu ka soo hanuuninay oo ka soo kulmiyay maalinta aniga Muusabix oo isagoo benshan galay waliba aanu ku nidhi wardaad tan wax ka doonaysana kaalay ta dambe hadda wax ka kaalay noo nala shaqeey ومانت غير بورمي يمشي عقل عدا جبريل يونس نلتشبي ياكل مية كما غني صاصي وسنة وجودن بي سيدي بكو صور ضافي كل يمي بلن كيف وليي كل مية لا شقي مركا يتحاسنا وحاس waxay wada muujinayaan wax uun deel la iska anta tabanayo muxuu ahaa wax walbana waa la isugiyahay ده اسمه عيدنا اسمه قلدي كرتو عيدنا اسمه قلدي كرتو ما قرنا يوم مدحوينا كحجين كانك ده كرسي ساي لو مش هو حيسكاه مدام اسكا أراسه وحاول كيس الله تارجت كريينا كحجين هدو دونيا رجع كلنا ده كحجين وببنين دونا ويسكا بنانان دونتا وحكلا الله ده وهو جانكا ولما ماش أفراد كتشو وحنون يصير ورثنا طلب مقولة ديني للا دجالة الدولة دي خراء اللي اسمه تاسو كشرية
sayilcina ma halkaasaa lagu maagay baan siri waxaan ku ururinayaa aan leeyahay taageerayaasha xisbiga kulmiye waxaan leeyahay fariintaan halkan uga gudbinayaa waxa weeye haniyad jabina waxaynu gelaynaa dagaal adag oo aynu dib ugu soo celinayno xisbigeennii tubtii saxda ahayd aynu ugu soo celinayno waxaan ku soo ururinayaa madaxweyne muuse waxaan leeyahay ismaroorinta iyo ismacaashiinta ka muuqata ismaroorinta iyo ismacaashiinta kaa muuqata ma noqon doonto midaad mahadiso mustaqbalka balse aynu dhowro halka uu ku dhammaado awrkaa buubaalkeed hoggaankiisa haysta sida dhismaha caalamka wax la dhiga caynkoodii shirkad ku caanbaxday shaqaalo loo carbiyey howl waqti cayiman ku idleeya Awad Construction Company cajiib maaha waa cajaayib haddaad hayso cuud ka saar kirada ciilkeeda calaacarka joogtada qoyska ugu aqalada cajiib eesh calaa dhismo fooq bangalo fooq blood misblood masjid bakaar iskuul sariibad u dhis bulshada u iibi carruurtaada ku casuum marwada maxaa faarad cudoon adeeg ku cuntama Awad Construction Company ku diyaar waxa cayrad aluminium agab furniture ku ciiltira sida albaab daaqad qalabkii guryaha xafiis aan walba leh u doona Awad Construction Company alla yaa cizag makiinada jaajiir u qoday cadad walba oo aad dalbato Awad Construction Company uu kaale laazim waa culays gaadiid ku cilbax laga caawiyo iska rogo ka dalba Awad Construction Company aan ku caawiyo tilmaanta waxa uu ku yaala Awad Construction Company agagaarka inay afdilne maxdarka Sky Motors ayuu u dhow yahay wixii faafayntaasi dheer kala xidhiid taleefanada shaashada hortaada ka muuqda dhismaha cudoon caasimad waxa ku farayaraysta Awad Construction Company